Bal asxaabay xogo cusub oo soo dhacday Sheikh Salaad Maxamuud Sheikh Salaad Santay oo xabsiga daaqilkiisa la dhex dhigay. Fadlan waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa in aad janaalka subscribe dhaad oo gambaleelkan u furtid muuqaalkan aad like la lacdid. Sheikh Salaad Maxamuud Sheikh Salaad Santay oo maalmihii ugu dambeeyay dadka ka cadaayadeynayay meelaha Soomaalida ee baraha bulshada ay ku wada kulanto, gaar ahaan TV-yadan ayna ka caynayeen dad oo caan ah oo ka aflagaadeynayay uuna ku cadaayadeynayay in ay diinta islaamka ka mid ahayn, uuna ku sheegay gaalo inay yihiin. TV-ya in uu ka soo muuqdan cadaayad caadi afkiisa laga hayo oo lagu cadaayadeynayay. Marar badan oo saldhigyada laga dacweeyay ayaa marar badanna odawaa lagu dacweeyay. Odawaa oo ka xishooday qofka shiiq ayuu yahay ayuu is yiri yaa lagu xadgudbin, askar looma dirin, waa laga xishooday. Dacwadiisa oo soo laalaabatay ayaa waxay keentay asigoo falkii lugaha kula jiro oo dad cadaayadeed dad caynayo in la soo qabto, la soo jiido, laga xishoonin, xataa ixtiraamna la siinin, la soo jiido oo sida xoolaha loo qalayo kaleeto loo soo jiido. Sheikh Salaad Maxamuud Sheikh Salaad Santay saldhiga dhexdiisa bartankiisa lagu dhex tuuro. Sheikh Salaad Maxamuud Sheikh Salaad Santay oo arintaasi ilaa hadda aanan ka qoomameyneynin, oo hadda asiga diyaar u sii hadii la soo daayo in uu markii la su'aal weydiiyay xabsiga dhexdiisa ma daanaysaa waxaan dadka caynaysid, waa lagu daanayaa maya ayuu yiri. Markii sidaas uu go'aan ugu qaatay ayaa asigana waxaa loo jaray maxkamad in la saaray, ayaa waxaa loo go'aamiyay in godka jilco dib loogu celiyo meeshuu waagiisa hore ku jiri jiray. Shiiqa oo wax walba markii la fahansiiyay aanay ka tusqaadanin in uu waxaan cadaayada joojinaynin oo meeshiisa ka sii wadaya. haddaba haddii la sii daayo isla maqribkiiba in uu muuqaal soo daadihin doono. Laakiin shiiqa oo warkii loo sheegay badhig aanu u dhigin ayaa waxaa la yiri inta cimriga ka dhiman xabsi kama bixi doontid, adduunyana waa tii kuugu ekeedo, aragtideedana sidaasoo kaleete adduunye iska daa, iftiinka inaanan arki doonin ayaa noogu balan ayay dhaheen. ummadda ka leexa maadaama lagugu bari waay adigoo shiiq ah, ummadda ayaa nafta u keentay, waa lagu dhex dhigayaa godka jilco. balan waxaa ayaa la yiri shiiq haddaad tahay shiiqnimadii dadka ku caynaysid oo dadka adiga shaydaan iyo gaalnimo ku caynaysid ayaa la yiri dib dambe qoraxdaas iftiinkeeda inaanu arki doonin. Sheikh Salaad Maxamuud Sheikh Salaad Santay oo walwal ka haynin ayaa wuxuu yiri oo walba godka jilco waan ku jiri haddana agteeda wax kama ahay, mar kale haddaan ku laabto fadlan muuqaal ayaan kula wadaagi doonaa. soo dhawow daawade, asigoo dad cadaayadeynayo ayaan kula wadaagi doonaa. fadlan muuqaalka daawada like saar oo janaalkan subscribe dhoo gambaleelka fur. soo dhawow daawade. aan maalin walba la hadlo inta warkayga dhibsatay inay cafiyaan ayaan ilaahay ayaan ka dalbayaa, laakiin عيدي ممكن